marka aad leedahay wuu yidhi dadka qofka ugu waxtar yar baa ugu mixnad badan oday adeerkaya waa ku sifoobay oday adeerkayunbaa hor yimaada kelmaddaa markaan maqlo intaad akhriysi wixii kugu leeyahay badnaa ama kugu saamaynta badnaa muxuu yahay kitaabka qur-aanka maalin kasta ood akhrido waxaanad hore u arag baad ku aragtaa kitaabka qur-aanka marka waxa igu saamaynta badan waa kitaabka qur-aanka ugu horreyn wasiir maxudiin soo dhowow waxaan rabbi inaan ku weydiiyo bilooyinka ugu dambeeyey sidii beer daaqoo kibrid la qabasiiyay ayuu warkaagu faafayaa in ay taasu dhacdo maxaa isleeyahay sabab bay u tahay anigu horta youtube ma lihi tiktokna ma lihi midna ma lihi dee tababaro aan dhallinyarta ku dhiirigelinayay oo ummada soomaaliyeed kula hadlayey iyo xaflado layga sida tan maanta buug feerkan jijigoo kale laygu yeedhay unbaan anigu mawduuca la isiyo ka idhaahdaa mooyaane wallaahi waxaan idhaha dadka way anfici unbaan mawduuca la ii dhiibay ku saabsan unbaan ka idhaahdaa laakiin laakiin waxaad ku samayn kartaa ma jiraa inay saa u faafaan de waxaan anuu isleeyahay un malaa mawduuca aad ka hadashay ayay bulshadu danteeda ka dhex aragtay unbaa igu jirta mooyaane anigu saasuu wax u sii faafeeyey waxaad siidaysaa maamaayo iyo hadalla cajiiba oo halabuurkooda kuwii halabuurka samaynayba ay ka tajacween halabuurkaasi maadiga aa sameeya mise wax hore soomaalidu u tiri baad dib boodhka uga jaftaa inta aan meesha ka sheegayba anigu hal shay ma lihi ummaddaa leh suugaanyahanna soomaaliyeed baan soo qaataa suugaantooda waanan raaciyaa weliba magacooda anigu wax suugaana oo aan curiyey amba aan leeyahay ma jirto laakiin marka ay xaaladi jirto iyaan suugaanta akhriyaa qodobka quseeyaanba odhahda quseeyaan ka soo qaadaa maahmaahda la halmaasho ee baahidaa jirta wax ka taabanaysa ee la halmaasho ayaan isu keena oon isku qabtaa mooyaane anigu wax maahmaaha oo aan leeyahay amba wax suugaana oo aan leeyahay ma jirto waxa aad sheegayso waa wax la xidhiidha waaqaca iyo xaaladaha siyaasadeed ee waddanka ka jira taasi saamayn ma kugu yeelata adiga aniga wax saamayn iguma yeelato laakiin bulshaday saamayn ku yeelataayo aniga mid baa igu jirta oo dareen ah ummaddaydu inay wax noqoto ummaddaan anigu ka mas-uulka ahay inay wax noqoto amba wax qabsato amba ay maaragtay danteeda iyadu taladeedu ay iyada ka go'do mowqif ah baa aniga igu jira marka kaasaa sababa inaan waxyaaba sameeyo aniga shaqada dowladda igu badan tahay haddana waxaa sababa inaan maaragtay igu kalifay waa dareen aniga igu jira wey inta aad lagudwaday social mediaha fariimaha meel kasta gaadheen tiktok iyo meel kasta ka dhaceen saameyn noocee ku yeelata adiga maxaa dareentay anigu waxba ma dareemin dad baa ii soo dirdira anu kelmadda waan idhi laakiin waxaa jira dad maaragtay negativism si aan anigu u odhan kelmadaha u adeegsada amba mas-uuliyiin ku xidha amba cid madaxa oo kale ku xidha ama sistamka anigu kolley sidaan u idhi anu kelmadda u idhi ula jeeday xaqiiqada halkii aan ka idhi iyo waxaan lahaa ay tahay unbuu alla aniga wax iga weydiin doonaa laakiin dad baa idhaahda marka kaala leeyahay hebel baa ku sifaysan marka kaala leeyahay hebel baa ku sifaysan marka kaala leeyahay hebel baa ku sifaysan markaa waxay noqotay nacam scenario dareenka bulshadu ay ku muujisaan ayay noqotay ani dhibiguma hayso laakiin cid walba falkii ay geysatay iyadu allaheed kala maaragtay ilaahay kala xisaabtami doona markaa saamaynta igu yeelatayna waa taas marka tii kugu la yaabka dambe noo sheegi kartaa ay usoo tii la yaabka badnayd waxay ahayd maalintii ciidda anigoo feelalkaas dhar ka iibsanaya ayuu ninbaa ii yimi sir waan kugu xidhnahay waan ku dhagaystaa beejkaygaan daawada saan ku yidhi wax ku anfacama ku aragto isu yidhi haa marka aad leedahay wuu yidhi dadka qofka ugu waxtar yar baa ugu mixnad badan oday adeerkaya waa ku sifoobay oday adeerkayunbaa hor yimaada kelmaddaa markaan maqlo markaa dadku ninbadh inbuu dhan ula kacay dadku waxay leeyihiin muxiidiin halabuurkan cajiibka iyo odhaayahan taabagalay ee isfaafaya muxuu dusha ugu haystay hore u sii dayn waaye horta anigu deegaanka ma joogin muddada 5 sannadan intan isbeddelka un baan joogay
dirdhabaan joogi jirnay, dirdhabaan wax ku bartay, dirdhabaan wax walba ku ahaa, maamulna ka ahaa, mas-uulna ka ahaa, shaqaalana ka ahaa. Marka dirdhabe dhalinyarta waan u qaban jirnay jaamacadaha gaarka loo leeyahay sida Rift Valley iyo Lucy iyo Greater University lafteeda dhalinyarta Soomaaliyeed ka qalin jabisay waan u qaban jirnay. Annagunba maanta is aragnay dadkan kale, laakiin anigu waxaan ahaa mid horeyba shaqadan ugu jirta. dadku waxaa kaloo leeyihiin xidin goorma siyaasadda ka tegi doonaa oo uu u digriran doonaa dhanka dhiirigelinta iyo u sheegidda dadka waxa waaqici xaqada jira qaab sugaysiisan iyo qaab xeeladaysanba. siyaasad horta dadkeena Soomaalidu kelmadda way misconception fahmeen kelmadda siyaasad. The word politics hadda ka horna waan ka hadlay kelmadda politics siyaasad ma. kelmadda politics waa tab iyo xeel. exact meaningigeeda aniga ahaan markaas Soomaali ahaan waa tab iyo xeel. Soolaan gabadh baa doonaysa inaad guursato, gabadhu yaalaabaad iska soo qaadanaysa maaha, jaranjarooyin aad u martaa jirta inaad gabadha la heshiiso, reerkiina u sheegto, reerkiinu reerkoodii u tagaan, gabaati la geeyo, yarad la geeyo. That is your politics. hab iyo xeeladda aad gabadha aad doonayso inaad guursato aad ku soo xero gashatahay, that is your politics. yool baad rabtaa inaad gaadho, dal baad rabtaa xilkiisa inaad la wareegto. xeeladda aad cod ku helayso, political structure-ka, mowqifyada aad ku tartamayso eed ummadda u sheegayso, that is your politics. khayaamo maaha. horta labada aynu kala saarno, labada kelmadood inaynu kala saarnaa fiican. khayaamo iyo tab iyo xeel waa kala laba kelmadood oon isla hal maalin oon xidhiidh lahayn. waan ka soo horjeeda dadku markay yidhahdaan siyaasad waa khayaamo, waa sir dad la sirayo. marka ma aha, waa kala labadaa kelmadood. inkuna idaacadda waxaa loo baahan yahay wixii danta ummadda ku jirto in laga shaqeeya waa qasab. annagu been kama shaqeyno. imika tusaalahaan anigu shakhsiyan dowladdaan u shaqeeyaa, dowladdaan ka mid dowladdu ma mid been ka shaqaysaa? caafimaadkaa laga shaqeeyaa, waxbarashadaa laga shaqeeyaa, oo jidkaa laga shaqeeyaa, oo kuwa islaayey baa loo gar qaadaa, dambiilaha la soo xidhaa. we are serving for the community. nacam dadka u adeegaan nahay, shaqaale shicib baan nahay, dad ummaddii u adeegaan nahay, dadkii wax u qabtaan nahay. yaan loo arkin siyaasadduu ku jiraa khayaamiyo sir buu ka shaqeeyaa ma aha. dareenka inay maaragtay dadka miidiyaga ka shaqeeya lafteeda idinka baxday waa inay jiheeyaan ay sheeb yeeshaan oo waxyaabaha loo baahan yahay. qabi xeladaan ku raacnay siyaasaddan bedelay xageed isleedahay waad ka gaari kartaa. ayo qabi xeladaas leedahay waa u socotaa, yani tabi xelad u bedelay siyaasad soo. anigu waxaan ballan qaadayaa xil wax loo orda maaha. wuxuu yidhi nin kastoo sallaan dheer kora siiba shaaxigi. adduunyada mara 3 mitir laga tagayaa gebigeeda, waxaan la isugu hawlin. laakiin danta ummadda intay naftu nagu jirto maaragtay maskaxda leenahay, awood leenahay inaan danta ummadda ka shaqeyno waan ku qasbannahay. horena waan uga shaqeynay. haddaanan xil haynana waanu ka shaqeyn, haddaanan xil hayna waanu ka shaqeyn. siyaasaddu maaragtay nacam tab iyo xeeshu waad aad u adeegsanaysid ummaddaada ugu adeegayso. adigu inaad ummaddaada u adeegto inaad xil haysa lagaagama baahna. ummadda inaan u adeego inaan xil haya laygama baahna. inaan miskiin sadaqa siiyo, amba qof dhibaataysan taakuleeyo, amba ummad tabaalaysan wax la qabto, amba dhalinyar soo qalan jabisay aan way of maaragtay entrepreneurship ay shaqo abuur u samaysana inaan qabto, inaan xil hayo kuma xidhno. may ku xidhan kuma xidhno, iskuma xidhno. markii xil la hayuunbaa ummadda loo adeegaa ma aha. adiga laftaadu yaar audience, dad baa ku dhegaysanaya, dad baa wax kula qabanaya. marka dadkaasi waxay kugu xidhan yihiin inta ay hadalkaaga dantooda ka dhex arkaan bay ku qadariyeen. su'aaliguma badan. inta waxaad maraan sheekaysan waxaad ii sheegtay in afka Soomaaliga aad wax ku baran adigu af Oromo iyo Xabashi aad ku barato. halka sada naga warranyada. aniga iskuul baa la geeyay, anigoo yaroo reer Dardaba iskuul baa la geeyay, iskuul Axmaar anigu wax ku dhigan jiray. anagoo weynoon baa la yidhi Soomaali baa tiin haddana dib baan isu baarbaarno. Soomaaligiina waan haddaan gabayga uurkoo buka iyo arami kaa keenin afkun baad ka leedahay tixoo ararma yeeshaan. damiir bara ah hadday kugu jirto adigaagan Chinese ood badan kartaa maanta. xilmaad bilowday marka xilmaad bilowday markay duruuftaasi qabsato. marka inta lag bay ku qaxto ayaga ha nagaga hadlina kiina ku hadal markii la yidhi ayaan kaan ahay isbaadi. waqti inta lag ku qaxto
soomaaliga barashadiisa hal habeen faataajadu hal habeen bay ka qaad haye inta kalena adaa marka wax isleeyahay adaa macallin soo intaas haddaa wax akhrido wax kasta waa keensan kartaa jirin ya adaa isu haya qofku isaga isu haya wax ima sheegin waxba ima barin maaha qofkay tahay inuu raadsado ma maqashay tawsin in la u galgasha tolna waa u irkiya gargar halkaad uga baahan tahay war halkaa iga qabta halkaa ila taliya marka lagaa helo iyo dadku wax kula qabtaa ku taakulaya laakiin rabitaanku adigu kugu xidhan yahay qabashadiisa arrinta xeeladda inaad sii wado halkeeslaad ka gaadhay yani arrinta xeeladda maadaama siyaasaddu bedelay maanta anigu buugaanta nooc walba waan akhriyaa oromadaan akhriyaa oo axmaarigaan akhriyaa oo ingiriisigaan akhriyaa oo soomaaligaan akhriyaa weliba intaba waxa ii fududoon aad u aqaana axmaariga intaad akhriyaysay maxaa kugu saamayn badnaa intaad akhriyaysay wixii kugu layaab badnaa ama kugu saamaynta badnaa muxuu yahay kitaabka qur-aanka maalin kasta ood akhrido waxaanad hore u arag baad ku aragtaa kitaabka qur-aanka marka waxa igu saamaynta badan waa kitaabka qur-aanka oon turjumaad ku akhriyo weliba soomaali aad iyo aad u maanta